daawade halkan waa M252 kusoo dhow muuqaal kale. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka loo yaqaano Sweet Coin. barnaamijkan ilama ahan inaadan maqlin, waad maqashay dabcan. hadalhayntiis aad ay u badan tahay waayahan, dadkuna wax badan ayay xiiseynayaan inay ka ogaadaan. laga yaaba adigana hadeer muuqaalka daawanay inaad xiiseynayso inaad wax badan ka ogaato. sidaa darteed qodobo dhowra ayaan kaaga sheegi doonaa Sweet Coin. si aad qodobada wax badan uga ogaato, su'aalo ayaan isweydiin doonaa. su'aalahaas waxaan ka qiyaas qaadan doonaa inaad adigana isweydiinayso. sidaa darteed qodobada ayaan su'aal u bedelayaa waana kaaga jawaabayaa. intaanan hordhac ka bixinna waxaan rabaa inaan kuu sheego in shirkadda Haleel Commodities ay sameynayso qiimo dhimis wanaagsan. haddii aad iibsato mid ka mid ah taleefanada Samsung S22 Ultra ama Samsung Galaxy Fold 3, labadaas mid ka mid ah haddii aad iibsato waxaad heli doontaa saacad Samsung ay samaysay oo weliba kuwa qaaliga ah oo free ah. dabcan labada telefoon mid ka mid ah haddii aad iibsato saacad free ayaad helaysaa. qiimo dhimistaa ka faa'iidayso, lana xiriir Haleel Commodities. markan waxaan galaynaa qodobada xiisaha leh ee Sweet Coin. laakiin intaanan gelin waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin yar oo xiiso leh oo ah in xilligan aan muuqaalka duubayo ay tahay 2 habeenimo ama 2 AM. waa 8 saac habeenimo sidaad u taqaano dabcan. badankiin waxaan rajeynayaa inaad hurdaysaan. qodobada Sweet Coin aan galno marka. waxaan ka bilaabayaa su-aasha ugu horeysa aad isweydiinayso oo ah waa maxay Sweet Coin? dabcan Sweet Coin waa 2 eray oo isku xiran, sweet iyo coin. sweet marka ay tahay EA aysan double E ahayn, macnaheedu waxay tahay dhididka jirkaaga ka yimaada. coinna waa qadaadiic ama shilimaad. Sweet Coin marka la isku daro waxay noqonaysaa shilimaadka dhididka. Sweet Coin shilimaadka dhididka. taa macnaheedu waxay tahay in aad shilimaad ka samaynayso inaad dhidido oo aad socoto dabcan. su-aasha saddexaad haddii aan u tallaabo, yaa sameeyey? maadaama London ama Ingiriiska laga sameeyey, dad British oo Ingiriiska u dhashay miyaa sameeyey? dabcan maya, dad Ruushyaana oo asxaab ah ayaa samaystay. dabcan waxaa ugu hadalhayn badan oo applicationkaa sameeyey ama fikradda ay ka timid 2 qof oo saaxiibo ah oo Ruushyaana dabcan. laakiin lahaanshaha marka laga soo tago, lahaanshaha labadaas qof ama samaynta marka laga soo tago, ilaa iyo 13 qof ayaa isla leh. su-aasha afraad ee laga yaabo inaad isweydiinayso, weynin intee la eg ayuu leeyahay Sweet Coin? macnaha application aad u caan baxay oo aad loo adeegsada miya, mise waa application fudud oo hadeer un adduunka dadka ay la qabsadeen? dabcan Sweet Coin waxa uu ka mid yahay marka laga hadlayo Play Store iyo App Store-kaba, waxa uu ka mid yahay barnaamijyada loogu degsiga badan yahay, gaar ahaan barnaamijyada caafimaadka iyo socodka marka laga hadlayo. barnaamijkan waxaa degsatay oo isticmaasha oo iska diiwaan gelisay sida la sheego in ka badan 50 milyan oo qof ama 50 milyan oo users ayuu leeyahay. su-aasha shanaad ee laga yaabo inaad isweydiinayso oo anigaanan isweydiinayo oo aan rabo inaan kaaga jawaabo waxay tahay, maxay tahay sababta loo sameeyey Sweet Coin? waa maxay sabab un ayaa ka dambeysa? dabcan su-aasha waxaa la weydiiyey dadkii sameeyey ama abuuray barnaamijka Sweet Coin. waxay ku jawaabeen, waxaan isku dayaynay inaan xalino mid ka mid a problemyada ama dhibaatooyinka dadka adduunka ku nool haysta, oo ah in ay dadku ku noolaadaan si caafimaad dariya, inay dadku wax badan fadhiyaan, in dadku dhaqdhaqaaqooda uu yaraado. sidaa darteed annagoo og dhibaatada ka iman karta in qofka uu wax badan fadhiyo oo uusan dhaqdhaqaaq samaynin, ayaan la imaanay fikrad ah inaan dadka ku dhiiragelino inay socdaan. waxaan u gudbayaa su-aasha 6. laakiin su-aashan waxay la tahay su-aasha aad isu weydiinta badan tahay marka laga hadlayo Sweet Coin. waana su-aasha ah, lacag ma ka samayn karaa Sweet Coin? dabcan aniga waxaan aaminsanahay maya. sababtuna waxay tahay
barnaamijka sweet coin sababta loo sameeyeyba ma ahayn inaad lacag ka samayso. dadka sameeyeyna ma ahayn ujeedkoodu in ay dadka lacag ku siiyaan inay iska socdaan. waxaan rabaa marka si aan taa kugu caddeeyo in aan kuu akhriyo hadal kooban oo ku qoran wajhadda hore ee barnaamijka sweet coin. marka aad soo degsato waxa ku qoran ayaa rabaa inaan kuu akhriyo. waxaa ku qoran convert your steps into a currency. tallaabooyinkaaga waxaad u bedeshaa currency ama currency waxaa loo yaqaanaa lacag. dabcan lacag u bedelo, laakiin currencygaas ma ahan lacagta saxda ah ee adiga aad isweydiinayso ee dollarka ah. waa lacag sweet coin oo digital ah. lacagtaas marka waxay dhaheen to spend on products, si aad ugu bixiso products ama agabyo ama waxyaabo ku dhex jira isla applicationka gudihiisa. tusaale ahaan funaanado, kabo, waxyaabo yaryara ayaad kusii gadan kartaa. offers ama qiimo dhimis shirkado kale ay bixiyaan inaad hesho. and supporting charitable causes, ama in aad lacagta socodka aad ku heshay ee sweet coinka loo yaqaano aad ku bixiso ujeedooyin sadaqo. dabcan hay-ado ayaa ku xiran oo ay shuraaka leeyihiin. hay-adaha waxaa ka mid a hay-adda caanka ee loo yaqaano Save the Children. hay-adda oo kale ayaad lacagta siinaysaa. sweet coinkaas marka aad siiso iyaga waxay u dhigan tahay inay lacag yar heleen. marka sidaas ayayna ugu talagaleen. laakiin ma jirto hab saxa ama hab toosan oo loogu talagalay sweet coinka kaa soo gala socodkaaga ee barnaamijkan sweet coin aad ka helayso inaad lacag u bedelan karto. ma jiro waddo saxa oo toosan. laakiin in aad lacagta sweet coinka dollar u bedelato aad ayay dhif u tahay. mar aan akhrinayay warbixinada ay dadku ka qoreen aad ayay dhif u tahay. inta badanna ma sameeyaan. su-aasha toddobaad ayaan u gudbayaa oo ah su-aal aan aniga isweydiinayo adigana dabcan aan filay inaad isweydiinayso oo ah maxay ka faa'iidayaan iyaga? xaggey ka keenayaan lacagta? sidee bay lacag uga sameynayaan? dabcan shirkaddan waa shirkad malaayiin dollar la geliyey lagu maalgeliyey. sidee bay lacag ku sameynayaan marka? barnaamijkan dabcan shirkado ayay wax u xayeysiiyaan. xayeysiinta ayay lacag ka sameynayaan. sidoo kale qalabyada ama agabyada yaryarka ah ee barnaamijka gudihiisa aad ka iibsan karto lacaga ayay ka sameeyaan. su-aasha xigta, intee sweet coin ayaan maalin kastaa heli karaa? dabcan maalin kastaa ugu badnaan waxaa lagu ogol yahay 5,000 oo tallaabo. sidaan kuu sheegayna 1,000 tallaabo ayaa waxa uu u dhigan yahay hal sweet coin. haddii marka dollar loo bedelo maxay noqonaysaa? 50 sweet coin ayaa $1 u dhigma. taa macnaheedu waxay tahay 50,000 oo tallaabo ayaa $1 ah. 50,000 oo tallaabo waa maxay? waa 50 kilomitir. dabcan lacag badan kama samayn kartid barnaamijkan. looguma talagelin. ha ku fikirin dabcan. looguma talagelin. haddii aad is leedahay sweet coin ayaa lacag ka sameynaya waad ku wareeraysaa. inta aad isdhihi lahayd wax badan soco oo qof aanan socodkaaga waxba ku lahayn wax ha kaa siiyo, waxaa kuu roon inaad adiga dantaada u socoto oo aad adiga shaqaysato. su-aasha ugu dambeysa ee aan rabo inaan isweydiiyo anoo ka wakiila ah adiga waxay tahay ma jiraa barnaamijyo kale oonan sweet coin ahayn oo sidan oo kale u shaqeeya, mise fikraddan sweet coin kaliya ayaa ku shaqeeya? dabcan barnaamijyo kala duwan oo badan ayaa jira sida sweet coin oo kale u shaqeeya. lacag aadan ka helaynin laakiin abaalmarino yaryara aad ka helaysid. waxaa ka mid a barnaamijyadaas healthy wage, limbo, charity miles, caro 2.0, rantobia, wellcoin, lifecoin, achievement. barnaamijyo noocaas ayaa jira. keliya ha u malaynin in sweet coin uu fikraddan fuliyey ama apply gareeyey. sidoo kale anigoo kaaga mahad celinaya waqtiga qiimiga badan ku bixisay daawashada muuqaalkan. maxay kula tahay barnaamijkan?
haddii ay jiraan su-aalo kale aad isku weydiinayso fadlan qeybta hoose ee faalooyinka soo dhig. waxaan rajeynayaa in dad kale ama anigaba aan kaaga jawaabi doono. sidoo kale ma jirtaa ama maxaad ka aaminsan tahay barnaamijkan? waxa aad ka aaminsan tahayna qeybta hoose ee barnaamijka ama faalooyinka nagula wadaag.